بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك الله مالمها خير كبدنا نكوشرنو عبادة يا عمل كصالحة يا وناق يا خير كانوا فردينو الله ينوبرك كيو مدحنا جمهورية الصومالي لان مدحنا كحينك جمهورية الصومالي لان حمناها قولها وسير هذا مسؤولين تحليلك كردوان كايا حكومة الثلاثة هايسا martida fadhida ee ganacsatada suuqa waaheen ee dhibaatada dabka ka soo gaadhay dhamaantiinba waxaan idinka mahad celinayaa waqtiga saad u ajiibteen iyo munaasabada sidaad u soo ajiibteen aayaadka quraanka kariimka ah ayaynu madasha ku furanaynaa si ilaahay noogu barakeeyo ujeedada iyo khayrka aan u soconana ilaahay uu ka dhigo midaynu ku guuleysano oo qarankeena iyo ummadeenaba sharaf u ah waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdiqaadir Xuseen oo aayadka quraanka kariimka ah مدشين وقدها فردونا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم وحنو يا قدوميها ربطة قناعسك الصومالي لان شمال عيديد إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدحوين كحيجينك حبناها وسير هذا مدحنا كلام ما شفرده قرعسtada suuqa waaheen ay dibtu gaadhay inta maanta madashan ka fadhida dhamaantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh sidii aynu horeba u sheegnay ama caalamku marxaati ka yahay ilaagu yimid ee indhahooda wax ku arkeen waxayna soo gaadhay masiibo qaran oo runtii ganacsigeennii iyo suuqii ugu weynaa Jamhuuriyadda Somaliland oo marka la eego wadan waliba meel la yiraahdo downtown buu leeyahay suuqa hoose ama suuqa dhexe ee la isugu yimaado oo suuqii Hargeysa loo yaqaanay suuqa hoose ama dhexe ganacsatadeenuna ugu badnayd dibtii soo gaadhay ayaynu halkan u fadhinaa horaanteedii wixii aynu ka qaban lahayn ama aynu ka caawil celin lahayn wixii muxuu ahaa dhibaatadaas dadka ay soo gaadhay halkan waxaa maanta fadhiya 30 qof oo ka mid ah 988 qof oo guddida suuqa waaheen dawladda hoose guddidayada heer qaran ee taakulaynta iyo gurmadka suuqa waaheen aanu dhammaantayo isugu soo ururinay inay yihiin dadkii ugu jilicsanaa ay dhibtaasi soo gaadhay dadkaas 988 ka qof waxaa lagu qiyaasay lacagtooda qadarka ugu sareeya inuu yahay $5,000 inta uu qofka ugu hooseeyana uu kaga gubtay meeshaas ama uu ku soo gaadhay dhibaatadu ay tahay $73 inta u dhaxaysa dadkii ka koobnaa waxaa halkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland gartay inuu u hormariyo oo iyaga oo aan sugi kareynin hawsha kale ee guud ahaan loogu maqan yahay in dadka loo sii hormariyo waxoodii la siiyo oo gacanta buuxda maanta si ay noloshoodii ugu soo celiyaan loo horeysiiyo oo runtii aad iyo aad ugu muhaadsan yahay annagana inuu nagu dhiirigeliyay inaanu ka soo shaqeyno inaanu dadkaas soo ururino oo aanu maanta halkan keenno dadkaas oo 30 qof halkan ay fadhiyaan oo iyaga lagu siin doono cash inta kale ee soo hadhayna banka dhexe uu ugu diri doono telefoonadooda qof walba mobilkiisa ayaa loogu dirayaa mas'uuliyadana waxa leh banka dhexe oo qaybinaya runtii waa wax weyn inaynu maanta 900
iyo 38 qof mar labaad dabkoodii u shidno shaqadoodii ugu yagleelo oo aynu haddii rabo xukmaayo nidhaahno dhiirigelin ummadda inteeda kalena loo diyaar garoobayo oo loo qabanayo wixii loo karo waa horumar weyn intaasaan muxuu ku daahfurayaa waxaan ku wareejin doonaa cidda igu xigta waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah kelmadiisaan siinayaa maayir ku-xigeenka caasimadda hargeysa khadar nuur axmed cumar ahna kusimaha maayirka caasimadda hargeysa bismi illaahi araxmaan araxiim ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne ku-xigeenka guddida heer qaran ee suuqa waaheen guddida ganacsatada ah ee suuqa waaheen dadka ku tabaaloobay ee maanta hortayda fadhiya ee la xooleynayo xildhibaanada golaha deegaanka guddoomiyaha bangiga dhexe aqoon-yahanada jaaca muse jaamac iyo maxamed warsameeye tiimkaas aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bilxaqiiqatan maanta waxa weeyaan waa arrin weyn iyo farxad weyn in dhaqaalihii inaga soo gaadhay ummadeenna kala duwan qeybaha kala duwan hadday noqoto ganacsato iyo hadday dowlado jaaraba noqotoba intii ugu horreysay maanta dadka si toosa loo gaadhsiinayo oo si dee daahfurnaana loo wada gaadhsiinayo bangiga dhexe jamhuuriyadda somalilandna si toosa u wada dirayo 30kii qof ee lays yidhi waa faneera bale way dadka sambal way noqon karaan ayaa halkan horteena fadhiya marka ilaahay waxaynu uga baryaynaa dhibaatada iyo musiibada weyn ee nagu dhacday in ilaahay xooluha maanta la siiyey inay dib kuwii ganacsiyadoodii u bilaaba inuu ilaahay ka yeelo oo aan xoolaha yare maanta la siiyey aanay dee ku bixine in haddana bal si ay dib noloshu u bilaabi lahaayeen oo ganacsiyadii dib u bilaabi lahaayeen in ay halkaa hore uga wadaan waxaanu la dareennahay oo la damqashannahay dadkii suuqa waaheen hantidoodii ay ku burburtay haddaanu nahay golaha deegaanka caasimadda hargeysa mas-uuliyad iyo xil weynna waa naga saaran yahay ilaahay idamkii qarankeennu waa ka soo kaban doonaa ummaddeennuna way ka soo kaban doontaa maxaa yeelay dhicidda dhibanayaasha waxaa ka mida dowladda hoose oo xaqiiqa oo la doonaya laftigeeda in la xooleeyo oo dee dhaqaalihii ugu badnaa halkuu ka soo geli jiraya kirooyinkii halkeenu ku geli jirnaya ardayda halkii laga heli jiraya marka ilaahay idamkii qarankeennu waa wada guulaysan doonaa shacabkeenuna waa guulaysan doonaa waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo guddidaa heer qaran si cadaalada iyo si xaqa tiimkaa u wada in hawsha lagu taageero aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan u yeedhayaa qadan xasan nuur oo ku hadli doonta afka ganacsatada maanta lacagta la guddoonsiiyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ayaan idinku salaamayaa aad iyo aadna waxaan u salaamayaa aan u mahadnaqayaa madaxweynaheena jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan marka hore waxaan u mahadnaqayaa maxaan ku dhahdaaye ilaahay alxamdulilah ilaahay baan u mahadnaqayaa madaxweynahaan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa maxaan ku dhahdaaye horta masiibadaa rabbaaniga ilaahay keenayna dee waa wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan oo wuxuu ilaahay keeno wax ilaahay loogu mahadnaqo oo dee waayo qadar ilaahay baa dhacay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allah biilaahi kariim muslimiinteenna dhammaanteen iyo intii kale inagu dhex noolada masiibadu soo haleeshaba inay dee insha allah kuwii ka soo kabta allah ka yeelo waxaa kaloon u mahadnaqayaa maxaan ku dhahdaye guddida madaxweynuhu u xil saaray ee maxaan ku dhahdaaye nin walba halku joogay sida anagoo 30 maanta halkan waxaan ku fadhinaa 30 qof 30kaa qof oo maxaan ku dhahdaye sidii aan usii kala hooseynay maxaan ku dhahdaye aan usii kala hooseynay iyagoo maxaan ku dhahdaye nin walba halku joogay insha allah ilaahay raalli ha ka noqdo nin walba halku joogay insha allah kusoo qoray lambarkooda magacooda nagu soo wada habeeyey nin walba halku joogay ooga yeedhay xafadoodii ooga yeedhay
nasoo qabanqaabiyey intaan na soo waday maxaan ku dhahday hawsha iyaduba ay soo gaadhay iyagana ay hawsha ay soo gaadhay haddana aanay toodii xasuusan inay taayadii xasuusteen ayaan guddida u mahadnaqayaa insha allah aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa guddida annagu 30 qof baan nahay dadkii waxaan nahay waaheen aanu sii kala hoosayna waxaan nahay dabaqadii u hooseysay baan nahay oo dee qofba wuxuu kolkaa haystaba u hantiya ma ogtiin ha yaraada ha badnaado laakiin dabaqadii u hooseysay baan nahay iyo intaasoo maanta inaga soo xuleen oo maxaan ku dhahdaa ayaamadaba noogu hawlanaayeen ayaan ugu mahadnaqayaa guddida waan u mahadnaqayaa maxaan ku dhahdaa ciidamada qaranka waan u mahadnaqayaa muslimiinta dhammaantood meel kasta ay joogto waan u mahadnaqayaa insha allah biillaahi kariim waxaan leeyahay guulaysta aakhiriya adduunyadaba guulaysta insha allah walaalaheena islaamka ee ayna soo caawiyeyna waxaan leeyahay maxaan ku dhahdaa waa wax idinka horeeya maxaan ku dhahdaa idinka horeeya dad baxsateen oo sadaqad weyn baad baxsateen dee waddan muslina kala dib maxaan ku dhahdaa waddan muslina caawiyana dee waa sadaqad insha allah biillaahi kariim ilaahay waxaan idinka rajaynayaa insha allah madaxweynaheenu ha guulaysto ciidankeenuna ha guulaysto guddida intaana soo hagaysay een qolo noo eegin een qabiil noo eegin een hiblaayo noo eegin een hebel noo eegin ee intaan nagu hawlanaydna aakhiriya adduunyadaba ha guulaystaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kelmadiisa isna siin doonaa afka ganacsada xubin kaloo ku hadlaysa bashiir axmed ayaan kelmadda siinaya marka hore waxay ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxa weeyaan halkan aynu sugnimo horta marka labaad ilaahay baa mahad iska leh mahad ilaahay baa iska leh waxa weeyaan halkan waxaa isugu timi ummad fara badan oo kala gedisan waxa weeyaan masiibadii ka dhacday waddanka ee waxaan ku yidhi ballaadhnayd ee caalamka iyo afrika iyo eeshiya baa la yaabay waxaan ku yidhi halista ahayd baa isugu keentay markaa waxa weeyaan halkan maanta madaxweynihii baa fadhiya iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddidii u xil saaray arrimahan kala gedisana masiibooyinkan ka dhacay suuqa weyne waaheen waxaan leeyahay markaa iyadoona halkan markaa ay taasi isugu keentay inaynu maaragtay marka horeysa ilaahay naga xawilo marka saddexaad waxaan leeyahay guddidan isugu timi halkan ee hawsha ballaadhan ee ka dhacday waddankan somalilan suuqa waaheen loo xil saaray aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waayo hawshii ay lahaayeen way dhigeen dantoodii way ilaaween wax walba way iska dhigeen ummaddii halkaa isugu timay masiibadu ku mahabsatay ayay u guntadeen waxa weeyaan halkan ay fadhiyaan horteenna waa ragga waxaan kuuli intayadaa imika wada socota aan isgaranayn qofba meel ay uga yeedheen aan qofna qof aanu ogeyn waxa weeyaan waynu u ducaynaynaa guddidaa ilaahay khayra siiyo baanu leenahay waxa weeyaan halkan arrin baan yaro dhaafay madaxweyneheenii qaaliga ahaabaa halkan fadhiya iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiirada kala gedisan iyo guddidan iyo guurtidan uu u dalbaday arrimaha magaranaysa iyo hawlaha kala gedisan ee halkan fadhiya iyo saraakiishan gedisan ee ciidamadeennan ilaahay ha barakeeyo waxaan ku dhan walba inaga xiga waxaan leeyahay allah ha barakeeyo madaxweyneheenna qaaligaana ilaahay caafimaadka u siyaadiyo xaaladaheennu markay xaaladuhu sidaa u socdaan sidaa u dhacaan haddii aan waxaan ku yidhi gabcaan la isqabsan oo waxaan ku yidhi aan wax la noqon madaxweyne ilaa wasiir ilaa ka u hooseeya dee waxba noqon mayno waa gamcaweyne jir bay wax ku qabsadaan waa kay wax ku dhacaan waa kay dhibaatada ku dhacdo waa kay wax kala hareeraan waa intaba haddii aan laysiga guntay madaxweyne muxuu qaban karaa guddigu maxay qaban kartaa waxa weeye haddaba waxaan leeyahay halkan maanta anigu waxaan ka mid ahay dadkan yaree hoose ee magaranaysaa ee bacdiyaalkaa markaa waxa weeyaan ilaahay waxaan uga baryayaa horta guddidan madaxweynuhu xil saaray howlahan dalagisan ka dhacay magaranaysaa masiibada ka dhacday suuqa waaheen
ilaahay waxaan uga rajeynayaa caafimaad iyo cimrigooda ilaahay bashbash iyo barwaaqo intay nool yihiin allah ha ku barakeeyo, allah ha ku barakeeyo. waxa weeyaan magac iyo maamuus bay laga mudeen iyo duco. waxa weeyaan haddaba ilmaadeerayaalo waxaan leeyahay aan hadal ku soo gabagabeynayaa inaan magaranaysa aynu halkaasaan kaga haray. waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha guddida heer qaran ee taakulaynta abaaraha aan idhaahda gurmasada suuqa waaheen sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somalilan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مدحوينها قرنك جمهورية سومالان مدحوينة كحجينك حبنا قولا وزير ردا حبناها قدي دا gurmadka iyo taakulaynta ee suuqa waaheen xubnaha dadkii ku tabaaloobay suuqa waaheen iyo dhammaan marti sharafta kaleba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu. salaan ka bacdi maanta waa maalin weyn, waa maalin aynu isugu nimi in madaxweynuhu uu maanta halkan ku guddoonsiiyo dadyowgii wax ku noqday ama ku tabaaloobay suuqa waaheen qeyb ka mid ah oo ah qeybtii ugu nuglayd dhibta, iyadoo dhammaan dadkii halkaa wax ku noqday oo dhami runtii dhib ballaadhan ay soo gaadhay. mudane madaxweyne waxaan ka horraysiinayaa in aan mar labaad halkan ka sheego warbixin kooban oo guddidii aada magacowday ay qabatay. mudane madaxweyne waxaa aanu magacownay xubno guddi ganacsi iyo culimo oo muhiimadoodu ahayd inay soo ururiyaan qaadhaanka ka soo ururiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan si loogu deeqdaa loo gaadhsiiyo dib u soo nooleyntii suuqa waaheen. laba, waxaanu magacownay guddida xog ururinta ee suuqa waaheen oo ka kooban 24 xubnood oo ka kala timi dhammaan qaybaha kala duwan ee ganacsiyada suuqa ka jira. 3, waxaan diyaarinay warbixin rasmiya oo khasaaraha uu keenay musiibada dabku ee suuqa waaheen oo dhacay 1 bishii afraad 2022. 5, guddidu iyadoo kaashanaysa maamulka dowladda hoose Hargeysa waxay xidhay dhammaan 11 waddo ee soo gala suuqa marka laga reebo 2 waddo. 6, waxay diyaarisay 6 suuq oo ku meel gaadh ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin beerta xorriyadda, xerajaada, injida, hadhwanaag, laynka booliska oo aan ugu talagalnay in ay si ku meel gaadha ugu sii ganacsadaan dadkii ka barakacay suuqa oo diyaarinteedu iminka ay gebageba tahay. mudane madaxweyne waxaanu diyaarinay liiskii iyo xogtii dadkii dhibtu ka soo gaadhay nasiibada dabka suuqa waaheen iyada oo hadda lasoo dhammaystiray fayskii koowaad ee liiska, laakiin diiwaangelintu weli ay socoto. markaa waxaanu soo saarnay liis hordhaca
oo aanu maanta halkan intii ugu jilicsanayd ugu talagalnay in aad ku guddoonsiisid qaadhaankii soo ururay. guddidu kulamo kala duwan ayay la yeelatay dowladaha caalamka qaar ka mid ah iyo hay-adaha caalamiga ah iyo UN-ta. guddidu waxay wafdi ballaaran u dirtay shir ka dhacay magaalada Nairobi, shirkan oo lagaga hadlayo dib u dhiska suuqa Waaheen, waxaana shirkaa ka soo qayb galay wadamada dhanka horumarka kala shaqeeya Somaliland. mudane madaxweyne, waxaa maanta hortaada taagan 30 qof oo aan ugu talagalnay inaad maanta halkan ku guddoonsiisid qof walba adduunkii kaga lumay suuqa, taas oo lacagtooda ay ka bilaabayso $5,000 iyo wixii ka hooseeya oo ku siman ilaa $770 oo inta tiradoodu ka yar tahay lacagtoodu ka yar tahay 500 loo dhammaystiri doono, 500 loo gaadhsiin doono. waxaan mudane madaxweyne ay ku faraxsan yihiin in intii kalena oo tirada guud oo isku ah 988 soddonkaa mooyaane inteedii kale waxa aan u xil saarnay baanka dhexe Somaliland inuu qof walba uu ugu shubo lacagta moobilkiisa hadduu zaad yahay iyo hadduu iidahab yahay in halkaa lagu gaadhsiiyo. hawshaana waxaa fuliyey baanka. sidaa awgeed mudane madaxweyne ku soo dhawow. waxa weeyaan kelmaddaadii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxaynu isku nimid inaynu bilowno hawshii waxu qabashada dadkii tabaaloobay oo bilowa oo soco doonta ilaa inta aynu ka dhammaystirayno waxyaalihii dabkii noo geystay, hadday dhismo tahay iyo hadday horumaro tahay iyo dalka oo dhan baraarujintii uu nasiyey dabkaasi waxyaalaha aynu ka qabanno mustaqbalka oo bilowa ayaynu maanta nasiib u helnay inaynu halkan ka bilowno tallaabadii u horreysay. masiibo kastoo timaada waxaa laga bartaa cashar. dadku waxay idhahdaan horumarku wuxuu ku yimaadaa oo dhibaatooyinka hadduu ka yimaado baa kolba midii kuu timaado sida loo xalilo ayaa lagaga baxsaa dhibaatada moo soo socota. waxuna waa imtixaan. dabkaa ka kacay suuqa Waaheen waa imtixaanada laynagu imtixaamayu ka mid ahaa. ilaahay uga mahadnaqaynaa dad nagama dhiman. wax walbana nafta baniaadmiga u qaalisan. dadna dhaawac culisna cidna kama gaarin. wixii dhaawac ahaana way noo wada bogsadeen way fududahay. hanti baa nagaa luntay. hantida qofka wixii ka baxay ilaahunbaa usoo celin karaa oo cawudi karaa. markay wax dhacaan dadku waxaa gurmadku kow ka yahay in loo xoologooyo. xoologoyntana waxaa loo eegeeyaa taag daran horta wax loo qabtaa. waxaa laga yaabaa qofka ugu lacag badan ee lacagta u badan ka baxday inay malaayiin tahay oo inaan lacagta una celin karin, nuskeedna gaari karin. laakiin ninkaa malaayiintu ka baxday waxaa ka dhib badan inta lasoo diiwaan geliyey qofkii ugu yaraa ee sheegtay lacag wixii uu haystay wuxuu noqday qofka haysta $370 oo Maraykan lacag u dhinta. kaa iyo ka malaayiinta badan ka baxda waxaa aqliyadu ina siinaysaa kaa xoolaha la waxbaa u haradoo uu sii noolaan karayaaye kan 13 ka baxeen iyo waxa la midkii ee dabka shideen horta in xoologoynta laga bilaabo loo gurmado. sidaasay guddidu ku soo diiwaan gelisay. siday guddidu inoo sheegtay waa horudhac liiskani. wixii kale soo baxa ee inoo midana xogooda way helayaan marka la xaqiijiyo. hawsha la qabanayaa maantana waa intii ciidigii horreysay sheegteen. maxaa waajiba markay haddaba waxaanu kala caana inaynu maxay yeelno. kolka hore qof waliba isagoo lilaahi ah oo wax kale ku doonayn oo dar ilaahay qofka ay dhibaatada ka gurmanaya waa inuu ka hawlgalaa wixii uu qaban karaayo. ducaa ugu yar qofku taakulaya ugu dar.
qof buu qado ka bixin karaa marka waxa weeye qofkaasi horta inuu isagoo isxilqaabo ta labaad qofna keligii iyo kooxi keligeed hawsha ma qaban karto khasaarahan dhacay iyo miisaanku lahaa waxaynu wax ku qaban karnaa iyada oo Soomaaliland ahaan aynu isku tagno oo inagu arrinta u galgalayno xooggeena iyo dhaqaalaheena iyo maskaxdeena meel wada marino si aynu uga soo kabano dhibaatada ciddii kolkaa inoo soo gurbataana waa alla mahadi waayo mahmaadu waxay tidhaahdaa arrinta nin kalaa u galgashaa tolo wuu erkaya marka caalamkan inoo imanaya waa kuwii ina erkanaya inoo soo gurbaday inageena saarantay waxaanu ka taxadiraynaa aan leeyahay waa qalad in qofku isagoon isagu waxba qabanin oon qofna 10 kuna Soomaaliana ku taageerin inuu isla yidhaahdo markaa dadkii maxaa loo qabtay oo yaad ku halaynaysaa dadkii maxaa loo qabtay adu maxaad qabatay intaad qabatay in lagu qofna ku dareeyay horta ka bilow maxaan qabtay anu laba war aanad hubin oo shaydaan kuu sheegayna ummadda ha dhex gelin waa la lahaa waa la yidhi oo ah xagga fadqalada u badanna aynu iska yarayno oo hal hubsado qofka dhibaataysan hooyada haysatay wax yar oo kaba yar maartay 400 kun oo Soomaaliland ee caruurtii ku qadan tahay dhagteedu wuxuu ku soo caabo gelayaan waa qof caadi fadaysan marka qofka islaamahu dadka tashwiish iyo naxda gal hadaad wax ku tareen waxtarka laftiisa waa inuu wada maraa marka inuu niri ka u taajirsan iyo ka ugu faraha marale iyo qof waliba meel aynu soo tagno oo waxayna meel aan wada marino oo dadka si xaq soo raano wax ugu qaybino qofka garab maraya waxa yar sida cid gaala siinaya waa khalad halkan dadkii aanu ku toobaynay inay adduunka Soomaaliland ay lacag badan halka soo fariisto oo hebel ah wixii ay bixinayeen oo la xukumeena ahkamayro hayo yiraahdo way dhigeen qofka ama dibadda qurbaha ka soo ururiyo ama dhalinyarada halkan iska abaaburiyo wuu wanaagsan yahay inay dadku wax iska ururiyaan oo gurmadaan laakiin haddaynaan meel wada marinin waxay nagu dhacaya iskhilaaf badan waayo markaynu maanta in liiskaa guud la ururiyey ee la leeyahay dadkii haystay intaa aynu siino haddii marka qofkii intaa la siiyey lacag isku siban labada hablood sag fadhiya la siiyey oo gabar yar berida timaado ama meel ka yimid annaguna waxaan nahay hebel oo intaasaanu ku siinayna ilaa dadkii isagu ma wada yaqaana in yar buu yaqaanaa marka waxaan ku talinayaa qofka dadaalo wax bixinayo waxaad bixinayso guddiyada ku soo shub maxaanu labada guddi u samayn mid waxaan waa dawladda waayo dawladdu way organized way nidaamsan tahay way amraysaa wixii warka waa la helaya dawladuna dawladaha la macaamila marka waxa weeye haddii waxaanu samaynay taaba inagu eegayna maanta maskaxda dadkeena guddida ganacsatada oo intii lacagta lahayd guddoomiye ka tahay haddaad shil hayso iyo haddaad boqol hayso iyaga u dhiib labadan account waa isku mid lacagta ala bixiyey ee dadku ururiyeen waa lacag qaran miisaaniyadday la mid tahay qof ma laha qof maamul maayo waa wixii qarankooda isu geeyey waa la xisaabinaya hanti dhowr wax xisaabin xisaabiya guud baa xisaabin auditka xisaabin publica loo soo bandhigi shirinkii la qaado waa in halkaa laga wada akhriya markaa taa ku soo dar aduu gaaro cid waxa u siin fadqalada dib u abuuraysa qofka gaar wuxuu ururiyo labada account marka dhaafta cid aaminay garan maayo waa nin fadqalada doonaya marka idinkana waxaan ka codsanayaa dadkii wax gaareen qofka gaar ahaan kuugu imanaya ila dadkana waxba da qaybsanaysa haddii gaar wax lagu siiyay halka dhexe aanu ka wada wadaagana xirada nagu soo wadsho tatrasisan loo qaybsan inay bilaan uga abuurno inta waxaan ku darayaa cadawga Soomaaliland wax alliya wixii uu doonay dhibaato inuu soo dhextuuraya waxabuuna kala farfaraya ninka maanta tan kala farfara deewaan Soomaaliland xumeeda doonaya waa in dadka wax loo qabto aan doonayn waa in aan doonayn in artimas wax lagu qabto maamulka guddiyada hadday wax ka qaldamaan haddii dadka cabanaya ay cabasha jirto imika elaysan ka maqanay qof kastoo islaaxa waa lagu dulbiyo lagu garab maray intuu waqtigiisa soo qorto uu guddidii laga soo bilaabay waa inuu yimaado oo uu soo xaqiijiyo oo uu markhaatigeeda keensado wixiisa uu helaya waa qof kastoo waa xayawaan wax ka gaareen baa leeyahay qofka laga booday waa la qaldami karaa waa la ogaan karin
hadday jirta taasi waddo cad soo mar laakiin ha abuurin waxaan loo baahnay taasi waa iga waaro ninkii taa kolka cana cadowgeenu buu shaqaynaya qurba jooga oo aada u dadaalayna waxaan leeyahay si midaysan wax u ururiya waa nasiib daro qurba joogba markay dibadda joogaan inay murmaan dadkii waaheen baa wax loo urinayaa waddo cad baa loo sameeyey hareeraha laga joogaa ka jooga laakiin si midaysan wax u soo ururiya iyo inaan cadowgeena maqlin bini aadmigeena tixgeliyo maanta eena soo tacseedeeyey ee noo barordiiqay waa dhowr iyo 40 dowladood waxay ku timid midnimadeena qarannimaynu arkaan dad kaleynu arkaan ninka wax kala farfaraya gooni wuxuu geynayaa ambada caada filaahi reeba fal halkeen marana qaar baa ku faanaya dadka gubtay anaga u badan oo midiya soo galiya ma wax lagu hadlaaba barselona ba gubtay maxaad ka faraysa qaar baa la lacagta cid bixisay anaga baano jaamac urfaa waa waxaas waa qaran dubis macaqli baa wax dhageystaa mamiir qaba waxaas waa ka baxan midiya dawladdu waa shaqeynaysaa waa la qura way kala sarreysaa dawladdu amarkeedu uu kala fulaa suuqa waaheen iyo ka magaalada Laascaanood iyo ka Ceere Gaabo iyo ka Burco iyo ka Berbera iyo ka Boorame iyo ka Hargeysa aragti baa lagu eegaya wixii dhacay uga tawaasheen qorshaha loo hayo halkan ayaa kuwa ka dhan la mid doonaya ka waaheen dhisan baa dib loo eegaya waayo waa 10 marka laga heshiyo saasaynu dawladaha waxa uu yeelaynaa cid waliba hawsha inteeday fulinaysa dawladda hoose mas'uuliyaddeeda fulinaysa taargeysa dawladda hoose hargeysa maamulkeeda iyada fulinaysa tabarbariyada fulinaysa iyaa ku kormeeraya wasaaradaha ku shaqale marka nidaamkaas ku shaqeynayna dawladdu isma khilaaf karaan meel khilaaf ka dhacay imika oo la isku qabsay jira suuqa laga abuuray dawladda hoose laga ayaa la baroojinaya dawladda hoose waa meel hoose qaranka talinaya dawladda hoose taa qaranku sii qaadanaya inta waxaan qaaday dadweynaha seen ku wanaagsanayna wax noogu ururayaan aad iyo aad baan u bogaadinayaa sabirka aa keenteen dadka wax ku dhaceen miidiyaha dadkii ka hadlayay aad iyo aad bay dadkii xooluhu ka baxeen ee meesha gubtay oo weliba haweeno badnaa iimaan qab alla aamin mid waliba waxay sheegtay alxamdulilah nin wala xoolo ka gubteen kan malaa'id ka gubteen alxamdulilah ilaahay baa keenay walaal heli kara xoolo laakiin dad aan waxba ka guban oo aan tirada barnaamij mid qaan baa fadqala abuuraha jeero waxaan wax ka diiday taana weeru joojinaa oo dhinac ka wada noqona guddiga aad bay mahadsan xil badan iska saareen guddiga waaheen ee hawsha soo qabatay ilaahay ka tisaaysiyo wixii cabashana wada saxi oo adkaysto oo sabra dadkiina go'aankii aynu soo qaadnay wuxuu ahaa dadka wixii shan ku ka yar wuxuu dhanaan cilmi wixii ka yar boqol 500 aan wasiir tadawii 3 ay ka gubtay 500 aan la siiyo waayo waa lacag babliga oo umadu soo ururisay oo loogu tala galay marka waxa waajiba horta ku waliita inuu ka daryeelo wasir ka dabo celin doona taasoo fuleena maanta lacagta la siinayaa ee baxaysa waxa weeye